لكن هذا قف صوماليات أو حس له أو عقل له أو دمقنية إنه يلاهذا أحمد بان إنه صون نقض مر لبعض مر صدحات جبلان إنه كسون نقضان أنوجو محوها يعني تاجرية قف أي كسور ده أو صومال إيمان تمشر إن يدورش جبلان كرد عدوى بتيك سنيني ومدة أنا أنوجو هذا وإيمت ومدة أن رجينا يودت كلا أو قدرينا محوها بوزيشن كان محوها مدحوينها إنه يماده قف والبا أو وكهيو هنقولي كهينا runtii dee xaq buu u leeyahay inuu tartamo waxaanu runtii isku dayi doonaa inaanu qof walba meeshiisa ugu tagno waxaanu aaminsanahay la wadaagno insha Allah biidhnillaahi kariim ayagana waxaanu ka rajaynaynaa inay maanta isgoyskaas Jubbaland taagan tahay meesha wadada saxdi ay maaragtay marayso way caddahay inay u diyaar garoobaan wadadaas inay qaadaan bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillah waxaan ilaahay ku mahadinaynaa safar aan saaka ka soo baxnay magaalada muqdisho noo sahlay inaanu ku soo gaadhno magaalada Kismaayo dabcan safarkaas oo ah mid aan muxuu ahaa ku aadanaa ololaha doorashada la filayo in uu ka bilowdo magaalada Kismaayo runtii waxaan oranayaa waa invitation ama maczuun una maczuumay ninka odayga ah oo la yiraahdo Axmed kadib markii uu iclaamiyay ama sheegay inuu qorshaynayo in uu doorasho uu qabsado isagu doorasho isagu leeyahay waxa la yiri Soomaalidu waxay hore u tiri laba nin baa lagdamayay marka nin baa wuxuu ku yiri labadii wiil mid kamid ah war wiilka iska xaj marka wuxuu yiri wiilkii baa wuxuu yiri waad noo wada tiri marka Axmed dabcan doorashada uu qorshaynayo waa mid uu noo wada yiri isagu laakiin ku talagalkiisu xogaha iyo wararkana soo gaadhay hordhaca waa mid sidii caadada ahayd uu doonayo inuu isku caana shubo laakiin waxaan rabnaa inaanu cadeyno hadii aanu nahay bahda ama muxuu ahaa midowga musharaxiinta Jubbaland inuu xilligii hore ka duwan yahay dadku inay dadkii hore ka duwan yihiin marxaladaha ku xeeran muxuu ahaa xaaladda hadda jirta inay xaaladii hore ka duwan yihiin jawigu inuu jawigii hore ka duwan yahay marka waxaan rabnaa inaan xusuusino in doorashada hadii uu qabanayo dabcan annagu runtii waaba tiigsanaynay inay doorasho Jubbaland ka dhacdo waaba tiigsanaynay laakiin midda aanu tiigsanaynay ma aha mid hadda wararkeedu tuuna soo gaaraya runtii ma aha mid aanu aqbali doonana ma noqon doonto Soomaalidu waxay tiraahdaa waayeel orodkiisu waa intaan la arkayn hadda intii muxuu ahaa fashilaad iyo waxaan dadka Jubbaland u baahnayn ama aan u qalmin intii uu dhici lahaa waxaanu runtii aan jecel lahay wax loo dhan yahay oo qof waliba uu fursad iyo galaangal u yeelan karo inuu kaga bogto sida muxuu ahaa uga qayb qaadan lahaa doorashadaas waa midda aan anigu hadda u imid waa midda aan rajaynayo dad kale oo qudaraynaya muxuu ahaa position kan muxuu ahaa madaxweynaha inuu yimaado qof walba oo uu ka hayo hunguri ka hayana runtii dee xaq buu u leeyahay inuu tartamo uu ka bogto inuu ama ilaahay baa dee waxaan qadaray inuu helo iyo inuusan waayin inuu waayo waa meesheeda midda kale oo runtii mararka qaarkood aad jeceshahay
waxaad horey uga digtay in ay timaado natiijadeedii runtii mararka qaarkood waad ku farxaysaa ma odhanayo laakiin waxaa dee qof walba muxuu ahaa u noqonaysa waaye aragnimo dee qofka marka ugu dambaysa dee lagu qiimeeyo wuxuu shalay ka digay hadday maanta yimaadaan ilaa warheer ninkii hebel ahaa wixii uu sheegayay run bay ahayd muxuu madaxweynaha iyo prime ministerka Soomaaliya dabcan anigu marar badan shir jaraa'id ama muxuu ahaa qoraal aan runtii soo bandhigay waxaan ku cadeeyay oo ku cabiray war Axmed ma taqaanaan baabuurka wuu ka boodi doonaa meel runtii aad u xun wuu ka boodi doonaa marka dadka reer Jubbaland waxa ay doonayaan oo ah inay helaan hoggaan iyagu ay xusheen fursad ha loo siiyo ayaan marar badan runtii aan soo bandhignay laakiin hadda maanta waa caddaatay shalay wixii aanu sheegaynay haddii ay mararka qaarkood dee loo riixayay ama loo jiidayay Axmed waa nala socdaa war Axmed ninna maba raaco qof uu raaco iyo qof uu muxuu ahaa wax la wadaago iyo qof uu muxuu ahaa wax la jecel yahay midna ma jiro naftiisa aan ka ahayn marka dadka Soomaaliyeed cid kasta iyo muxuu ahaa dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka intaba waxaanu rabnaa inaanu la wadaagno dadka reer Jubbaland maanta inay diyaar u yihiin isbedel waxaanan runtii cid walba kaalinta ay ku yeelan karto ka codsanaynaa muxuu ahaa inay arintaas taageero muxuu ahaa ama moral ama siyaasadeed intaba inay siiyaan